ku soo dhawow qaybta muuqaalada barashada ee Ogow EMR. Dhammaantiin waxaan gacan ka geysan karnaa badbaadinta nafleyda iyo joojinta faafidda COVID-19. Falalkaaga shakhsiyadeed waxay saameyn toos ah ku yeelan doonaan soo afjaridda masiibadan, ilaalinta bulshadeena iyo waayeelkeena. Ka badbaadi naftaada coronavirus adigoo ka fogaanaya goobaha ay dadku ku badan yihiin ama goobaha aad kula kulmi karto dadka buka. Cilmiga aanu leenahay cudurkan wuxuuna barayaa in dadka waaweyn iyo qof kasta oo leh xaalad caafimaad xumo sida wadna xanuun, neefta oo dhib ku ah qofka, kaadi macaan ama sonkorow ayaa laga yaabaa inay halis sare ugu jiro inuu ku dhaco COVID-19. Maxaan samayn karnaa si aan naftayda u ilaaliyo oo aan uga hortago faafidda COVID-19? Iska ilaali u dhawaanshaha dadka marka aad leedahay qufac iyo qandho. Iska ilaali inaad candhuuf ku tuftid goobaha la wada leeyahay. Ha tagin ama ha u safrin meel ka baxsan deegaankaaga inay daruuri noqoto mooyee. Joog gurigaaga ka fogow dadka inta aad kartid. Haddii aad ag joogtid dad kale, isku day inaad 2 mitir ka fogaatid. Taasi waa 2 tallaabo oo dhaadheer. Haddii aad yeelato qandho, qufac ama neefsashadu kugu adkaato, si dhaqso ah u raadso talo caafimaad, maadaama ay taasi noqon karto caabuqa hawo-mareenka ama xaalad kale oo halis ah. Wac 449 hormood 343 golis 988 Helisom. waa u sheeg dhakhtarkaaga wixii safar ah ee ugu dambeeyay ama haddii aad la kulantay dad socoto ah. waayo hore u sii wicitaanka dhakhtarku wuxuu u saamaxi doonaa inuu si dhaqso leh kuugu hago xarunta caafimaad ee saxda ah. Tan waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa ka hortagga suurtagalnimada faafidda COVID-19. Ka ilaali naftaada iyo dadka kaleba jirada. Dhaq gacmahaaga kadib markaad qufacdo ama aad hindhisto. Markaad daryeelayso qof buka, ka hor intaad ku guda jirtid iyo kadib diyaarinta cuntada, ka hor intaanad bilaabin wax cunitaanka, kadib isticmaalka musqusha, markay gacmuhu wasakh yeeshaan, kadib markaad gacanta ku taabato xayawaan ama saxarada xayawaanka. Xil baana saaran aynu qaybteena ka qaadanno ilaalinta qoyskeena, dadkaan jecelnahay, dariska iyo waddanka, inagoo raacayna hagida wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka.